reer Djibouti waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda iyo guud ahaan shacabka aan walaalaha nahay ee reer Djibouti oo runtii mar walba hiiladoodu ay caddahay intii Soomaaliya ay fitnada iyo dhibka ku jirtay muddadii 30 sanad ahayd ay soo dhaaftay ama dhaaftay hiilada reer Djibouti way kala duwan tahay all forms way ku timid dhinac kasta waxay timid ayadoo siyaasadeed iyo dib u heshiisiin formkaas ayadoo wata way timid waxay timid ayadoo dhiig la isu daadinayo oo hiil walaal ay soo direen oo runtii sacrifice fara badan iyo tadxiyaad fara badan soo sameeyey maantana ayaga oo gurmad waxyaabo badan isugu jira oo ay kow ka tahay dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo xoolaba runtii waa keeneen marka waxaa la oran karaa wax xillo oo ku dhiman dhinac kastaba ma jiro walaalahan reer Djibouti dhinac kastay runtii walaalahood uga heeliyeen waxaan filayaa walaalkiis wixii u tari lahaa reer Djibouti way u tareen walaalahood way u tareen waxa la halmaami kara ma aha dowladdan Soomaaliyeed hadda halkan mas'uuliyiinteeda ay idinla fadhiyaan idinku aragteen shaqeynaysa dowladdaas bacdallahi haddaan dowladda Djibouti jirin haddaan Ismaaciil Cumar Geelle jirin dee maba ay jirteen marka aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalihiin way idin ogyihiin arrintaas way idin ogyihiin marka annaga waxaan dhahnaa Soomaaliya bagay ugu dadaashay reer Djibouti markii hore inay dowlad noqoto bagay ugu dadaashay inay xorriyad hesho sababtoo ah haddii aysan taas jiri lahayn dee looma baxsadeen marka inayn ay Djibouti xorriyaddeedii lagu dadaalo in dowladnimadeedii lagu dadaalo waxay dhashay inay ayadii ay markii dambe ay badbaadiso shacabkii Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed markay duntay ayadaa isu soo aruurisay oo isu keentay dowladna u dhisay maantana dhaxalkeedii runtii dowladnimadii lagu naaloonayo kagamay harine dowladdaas si lagu taabagelin lahaa ay cagaheeda ugu istaagi lahayd ayay ilaa maanta la daba socdaan marka aad iyo aad baad mahadsantihiin idinka dhakhaatiir ahaan qaybihiina kala duwan waa idinka mahad celinaynaa runtii dadaalkaad samayseen iyo sacrifice-kaad samayseen gurigiina maad joogtaan oo markaad gurigaaga joogto wax fara badan iyo dadkaaga soo dulqaadanaysaa ajri fara badanna waa idin socdaa iyo khayr fara badan waxaan si gaar ah runtii ugu mahad celinayaa safiirka oo dadaal dheeri ah runtii ka geystay arrimahan oo dhan habeen iyo maalinna dadaalkaas wada sidii uu isugu toli lahaa walaalaha iyo sidii uu danahooda u midayn lahaa iyo sidii isugu xiri lahaa labada wadan ee walaalaha iyo labada shacab ee walaalaha ayuu runtii aad uga shaqeeya wuuna ku mahadsan yahay dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaana rajaynayaa insha Allah inaad noqon doontaan idinkoo soo guuleystay missionka aad u soo baxdeen ku guuleystay walaalihiin soo daweeyey niyadda ayaad u dhisteen markaad timaadeen shacabka Soomaaliyeed xilliga aad ugu baahan tahay walaal waa markii ay duruufaha noocaas jiraan markuu walaalkaasi degdeg uga soo jawaabo markii ay yimaado runtii waliba uu kula dego kula jiifo kula seexdo waxa weeye waxay leedahay dhigaal khaas ah oo qalbiga kaaga dhigan iyo niyadda ayay yeelanaysaa marka aad iyo aad baan mar kale madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka ugu mahad celinayaa